السلام عليكم ضمان أصحابتك كحرن أفلام تي في ميل والباء الجوكتان وقت كستا oo idin tahay ha idin wacnaato xilligan oo kale waxaad inooga barateen inaan idin soo gudbino musalsalkii taxanaa ahaa ee aadka u xiisaha badnaa ee qalbiyadii midoobay oo meel xasaasi inoo maraya intaan u gudgelin muuqaalka waxaan idin ka codsanayaa inaad subscribe-ka ku caawisaan walaasheena Amal Yusuf oo linkiga YouTube-keeda cusub aan idin soo dhigay qaybta hoose ee description-ka loo yaqaano description-ka hoose tag kadibna ku dhufo linkiga ku muuqanaya wuxuu ku geyn doonaa YouTube-keeda cusub ee Amal Yusuf subscribe u saara fadlan waxaad halkaas ka heli doontaa waxyaabo idin xiiso geliya oo iyada idin soo diyaarin doonta haddii Rabbi qadaro subscribe aad u saarto walaalkaaga waxba ma ka dhibayso muuqaalkeena ayaan u gudgalaynaa musalsalkii qalbiyadii midoobay wuxuu xalay inoo marayay qayb aad u xiiso badan wuxuuna ku go'ay meel aad u fiican oo dadku intooda badan ay dhahayeen war maxaa nooga jirtay musalsalka caawa ayaan idin hayaa laba qayb kale oo ka xiiso badan kuwii hore waxaan idin hayaa qaybta 15aad iyo 16aad ee musalsalkii qalbiyadii midoobay haddaba si aad u daawato waxaad tagaysaa Facebook-ga kadibna ku qor mucjiso jacayl 2020ka page-kaasi ayaa si toos uga daawan kartaa marka aan halkaasi uga soo gudubno qalbiyadii midoobay waxaan idin hayaa caawa maxay tahay arinta actor walba uu ka cabanayo in uu film kula duubo atriishada Kangana Ranaut waa atriisho qurux badan oo caan ah oo Hindiya laga yaqaano oo dhowr filmo keentay actor badan filmo ay la jileen balse waxaa jira actor badan oo ka cabanaya atriishadan Kangana Ranaut maxay tahay sababta ay uga cabanayaan waa hal arin kaliya oo ku soo gudbinaya Kangana waxa lagu tilmaamaa inay tahay nin marka laga cabir qaato hadalkeeda holaca ah waxa ayna far dheer tahay atriishooyinka kale atriishadan aan cidna seefteeda kala gamban ee Kangana Ranaut ayaa waxa ay dhawaan isku diyaarinaysaa duubista filimkeeda xiga ee looga hadlayo nolosha Jayalalitha actor walba oo Bollywood ka tirsan waxa uu leeyahay dabeecad taasoo dadka ay ku yaqaanaan laakiin atriishada Kangana waxa lagu tiriyaa dadka aan la heshiin karin ha noqdaan actorada ama atriishooyinka intaba waxaana banaanka la soo dhigay sir u gaar atriishadan taasoo qasabtay in actor walba uu iska diido filimka Kangana ay qayb ka tahay Kangana ka hor inta aysan aqrin sheekada filimka loo soo bandhigay waxa ay la timaada xujo aad u adag taasoo ah in loo ogolaado in ay wax ka bedesho muuqaalka filimka marka la soo gabagabeeyo duubista iyadoona iska jarta muuqaalada ay u aragto kuwa aan fiicnayn oo markaasi anshaxumada la dhihi karo waxaana midaasi ay sababteen actorada ay ka cararaan meel ay Kangana joogto xitaa waxa dhawaan arintaasi oo kale ay ku sameysay actorka lagu magacaabo Sonu Sood kaasoo markii dambe isaga baxay mashruuca Manikarnika The Queen of Jahansi wararka kale ee maanta filimaanta iyo musalsalada ku cusub ayaan ku sii soconaynaa daawadayaal innaba indhaha lagama daboolan karo iskoorka Dilbajara wuxuuna YouTube-ka ku garaacay filimada Zero Bigil iyo ilaa Avengers innaba caadi ma ahan goosgooska Dilbajara sida looga jeclaaday barta YouTube-ka iyo sida dadka ay u soo wada dhaweeyeen wuxuuna ka saramaray durba aflaam waaweyn oo muddo YouTube yaaleen waana iskoor weyn muddo 24 saac wax ka yar Dilbajara wuxuu noqday goosgooska ugu like-ta badan dhammaan filimada YouTube-ka innaba caadi ma ahan wax 24 saac ka yar waxa like saareen goosgooska dad sare u dhaafayaan 5.9 milyan oo qof waana wax aan horey loo arag muddo 24 saac ka yar waliba 29 milyan oo views ayaa daawatay iyo 5.9 milyan like muddo 23 saacadood bal kabaran hal toddobaad ama 24 July oo Dilbajara la daawanayo imise views ayuu sameyn karaa imise like oo milyan ayuu heli karaa ilaa 23 saacadood ayuu iskoorkan ku dhigay ciyaar ma ahan 29 milyan oo qof inay muddadan ku daawato ku dhawaad 6 milyan qofna like ay saarto waa iskoor weyn aan horey looga arag dalka Hindiya gaaraan filmaanta laga daawado waatahay daawadayaal intaasaan jeclahay inaan ku hakiyo muuqaalkan idinku talagalay caawa musalsalka qalbiyadii midoobay maalin walba taxana ayaan idinkaga soo gudbin doonaa haddii Rabbi qadaro halkan ayaadna kala socon doontaan like saar share garay comment-na hoos noogu reeb wixii faala aad qabto sidoo kale waxaan idin xasuusinayaa ayaan subscribe-ka laga ilaawina Amal Yusuf qaybta hoose muuqaalkan idin soo dhigay YouTube-keeda cusub ku caawiya subscribe-ka